kooyinka xiisaha leh ee ka soo baxay shirkii wadamada Carabta uga socday caasimada dalka Jordan ee Amman ayaa waxa kamid ahaa in telefishinka qaranka dalka Jordan uu isku qalday madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Mauritania oo ka qayb galaya shir madaxeedka jaamacadda Carabta ee lagu soo gabagabeeyay halkaasi. Arrintan ayaa ahayd mid saacadihii la soo dhaafay si aad looga hadalhayay baraha bulshada, iyadoo wariyaha sida tooska u tabinaya shirka jaamacadda Carabta uu madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku qalday madaxweynaha dalka Mauritania. boqorka dalka Jordan Cabdullaahi labaad ayaa markii uu ku soo dhaweynayay madaxweyne Farmaajo xarunta uu shirku ka dhacayay waxa uu wariyihii sida tooska uga soo tabinayay warka telefishinka uu sheegay in boqor Cabdulle uu salaamayo soona dhaweynayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga Mauritania Maxamed Waliid Abdul Aziz. wariyaha sida tooska telefishinka u tabinayay ayaa u muuqday mid aan kala aqoon labada madaxweyne, gaar ahaan waxay wadaagaan hal magac oo ah Maxamed. taas ayayna dadka qaar ku fasireen in uu ku qalday madaxweynaha Mauritania, maadaama dalka Mauritania uu ahaa dalkii ugu dambeeyay ee martigeliyay shir madaxeedkii Carbeed ee sanadkii la soo dhaafay. dhinaca kale, sheekadan oo ahayd mid xiiso leh isla markaana saacadihii ugu dambeeyay si weyn looga hadlayay baraha bulshada ayaa waxa sidoo kale labada madaxweyne iskaga eeg yihiin shaarubaha iyo timahooda, waana tan la oran karo waa la iskugu qaldi karaa labada madaxweyne. madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo kan Mauritania ayaa ahaa labadii madaxweyne ee ugu cusbaa shir madaxeedka jaamacadda Carabta, maadaama labadoodaba dhawaan la doortay. Khalid Fodadi, Sab TV, Hargeysa.